Assalaamu calaykum. Markaynu ka hadlayno taariikhda dowladda Islaamka waxaa laga maarmaanaya inaynu taariikhdaas u qaybino 7 casri ama 7 xilli. 7daasi xilli waxaa dunida soo maray maamulo kala duwan oo dhisay dowlad Islaam ah. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa taariikhda dowladda Islaamka. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Nambarka koowaad casrigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa intii u dhaxaysay 1 ilaa 11 hijriyada. Aasaaska iyo jiritaanka dowladda Islaamka waxaa markii ugu horeysay la dhaxdhigay kolkuu rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam intuu Maka ka haajiray magaalada Madiina. Halkaasi uu ku unkay unugii ugu horeeyay dowladda Islaamiga kana abuurantay. Maalinkaas bay haddaba bilaabmatay taariikhda Islaamka ee loo yaqaano hijriyada. unugii Islaamka si dhaqso leh ayuu ku ballaartay kuna koray, waxaana koritaankiisa qayb libaaxa ka qaatay dadyowgii oo qof iyo qabiilba u soo gelayay diinta Islaamka. Kadib furashadii Maka sanadii 8aad ee hijriyada, dowladda Islaamku waxay bilowday isfidin. Qabaa'ilkii jasiiradda Carabtuna waxay markaasi jumlada ay u soo gelayeen Islaamka. Kolkuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu eeboofsaday, dowladda Islaamku waxay wada gaadhay dhammaan jasiiradda Carabta. Nambarka labaad casrigii khulafada waa intii u dhaxaysay 11 ilaa 40 hijriyada. Kadib geeridii rasuulka sallallahu alayhi wasallam, muslimiintu waxay khilaaf u doorteen Abu Bakr radiyallahu anhu muddadii u dhaxaysay doorashadiisii ilaa waqtigii Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu. waxaa loogu magac daray casrigii khulafaa ur-raashidiinta, waxayna ahayd muddo 30 sano. muddadaasi ay khulafadu talinayeen, dowladda Islaamku waxay dibadda ugu baxday jasiiradda Carabta, iyadoo gaadhay dalka Shaam oo maanta loo yaqaano dalalka Suuriya, Lubnaan, Jordan iyo Falastiin, iyo sidoo kale waxay gaartay Qubrus, Ciraaq, Masar. xilligaas caasimadu dowladdu waxay ahayd Madiinatul Munawwara. Nambarka saddexaad casrigii Umayyiinta waa intii u dhaxaysay 41 ilaa 132 hijriya. dowladda Umayyiintu waxay ka bilaabatay Mucaawiya bin Abi Sufyaan, waxayna jirtay muddo 90 sano. dowladda Islaamku muddadaasi waxay ku ballaaratay dhanka bari, iyadoo ka dustay Iiraan siina dhaxmartay Hindiya ilaa ay ka gaartay Shiinaha iyo dalalka Aasiyada dhexe. waxaa kaloo ay u fiday dhanka galbeedka laga bilaabo dalalka Afrikada Waqooyi ilaa ay dhaxdabaalatay dhulkii la oran jiray Andalus ee maanta loo yaqaano Spain, Burtuqiiska iyo koonfurta Faransiiska. casrigaasi isaga caasimada dowladda Islaamku waxay ahayd Dimashq ee maanta loo yaqaano dalka Suuriya. Nambarka afaraad casrigii Cabbaasiyiinta waa intii u dhaxaysay 132 ilaa 656 hijriya. Cabbaasiyiintu waxay afgambiyeen xoogna ku dhaxleen Umayyiintii. dowladda Cabbaasiyiintu waxay ahayd mid awood badan, si aadana u ballaaratay ilaa ay ka soo gaartay qarnigii 4aad ee hijriyada. markaasi oo ay bilowday inay tamar dareyso ilaa ay gebi ahaanba ka burburtay. burburkii dowladdii Cabbaasiyiinta waxaa ka hoos dhashay dowlado fara badan. ugu dambeyntii khilaafkii Cabbaasiga ee la oran jiray Al-Mustacsim waxa uu sanadii 656 hijriya ku dhintay gacantii Mongooliyiinta oo uu hogaaminayay Holaako. casrigaasi dowladdu waxaa caasimad u ahayd Baqdaad oo maanta loo yaqaano Ciraaq. xilligii Cabbaasiyiintu, Islaamku waxa uu gudaha u sii galay dalalka Aasiyada dhexe, waxaa kaloo uu ku sii fiday qaaradda Afrika, isagoo gaaray dadyowgii deganaa galbeedka, bartamaha iyo bariga Afrika oo dabcan Soomaalidu ay ka mid ahayd. Nambarka shanaad casrigii Mamaaligta waa intii u dhaxaysay 648 ilaa 922 hijriya. maamulkii Mamaaligtu waxa uu xukunka kaga dambeeyay Ayyuubiyiintii. labadabuna waxay sameeyeen oo ay dib u soo celiyeen maamulkii Cabbaasiyiinta. maamulkii Mamaaligtu waxa uu ka bilowday dalka Masar, hase yeeshee kadib markii ay jebiyeen ciidamadii Mongooliyaanka ay qabsadeen Ciraaq iyo Shaam, waxa uu suurtagashay inay 3 gobolba ay gacanta ku dhigaan. taliskii Mamaaligtu waxaa ka faquuqmay dowlado Islaam oo fara badan, sida dalalka Afrikada Waqooyi, Andalus, Hindiya, Shiinaha iyo Aasiyada dhexe. Mamaaligtu waxay xukunka ku soo celiyeen Cabbaasiyiintii, waana xilli dadka qaar ay ugu yeeraan casrigii labaad ee Cabbaasiyiinta,
Si kastaba ha ahaatee, awoodda dhabta ee dowladda Islaamka waxaa xilligaasi gacanta ugu jirtay mamaaligta, halka Cabbaasiyiintu ay ahaayeen keliya maqaarsaar. Casrigii mamaaligta Islaamka waxa uu ku fiday qaarad oo ekaha Hindiya, koonfur bari Aasiya, iyo koonfur galbeed ee qaaradda Afrika. Xilligii mamaaligta waxaa gacanta Islaamka ka baxay dhulkii loo yaqaanay Andalus. Andalus waxay caalamka Islaamka si kama dambaysa ugu baxday sannadii 1492 miilaadi. Dowladdii mamaaligtu waxay jirtay ilaa 1517 miilaadi, markaasi ay jabisay dowladdii Cuthmaaniyiinta. Caasimadda dowladda mamaaligtu xilligaasi waxay ahayd Qaahira ee dalka Masar. Nambarka 6 casrigii Cuthmaaniyiinta waa intii u dhaxaysay 1517 ilaa 1924 miilaadi. Dowladdii Cuthmaaniyiinta waxay ka bilaabmatay dalka Turkiga, hase yeeshee waxay dhaxashay hoggaanka dunida Muslimka kadib markii ay ka guulaysteen dowladdii mamaaligta ee ka jirtay dalka Masar, Shaam, Ciraaq bilowgii qarnigii 6 iyo 10aad. Maamulka Cuthmaaniyiinta waxa uu markaa kadib ku fiday dhulalka Balqaanka la isu yiraahdo iyo dalalka Yurubta bari ee kuwa dhaxeba. Waxaa kale oo si fiican u gaaray Afrikada Galbeed, Hindiya iyo weliba bariga iyo koonfurta bari qaaradda Aasiya. Caasimadda dowladda Cuthmaaniyiintu xilligaasi waxay ahayd Istanbul ee dalka Turkiga. Dowladda Cuthmaaniyiintu waxa ay burburtay dagaalkii koowaad ee adduunka, waxaana ka faquuqmay dhammaan dalalkii maamulkeeda ku hoos jiray ee Turkiga dibadda ka ahaa. Sannadii 1924 madaxweynihii Turkiga ee xilligaasi Mustafa Kemal Atatürk waxa uu ku dhawaaqay inuu Turkiga yahay jamhuuriyad Calmaani ah. Halkaasina waxaa ku baaba'day khilaafadii Cuthmaaniyiinta ee diinta ku dhisnayd. Nambarka 7 casrigan cusub. Dalalka Islaamka badankoodu waxaa soo gumaystay reer Yurub, hase yeeshee xornimadooda si tartiib ayay ugu soo cishteen. Maanta waxaa jirta 56 dal oo xubno ka ah ururka Islaamka. Waxaa kaloo jira muslimiin saamigooda aanu yarayn oo ka tirsan dalal diimo kala haysta sida Hindiya iyo Shiinaha. Sidoo kale waxaa iyana jira dalal aynu ku tilmaami karno dalal Islaam ah, ha yeeshee xubno aan ka ahayn ururka Islaamka sida Bosnia and Herzegovina iyo Eritrea.